بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan rabaa inaan halkaan runtii marka hore waa mahadsan tahay walaal Mawlid adiga iyo bahda National TV Somali National TV aad baan idin salaamayaa waana dhawahay intaas kadib waxaan rabaa inaan halkaan hambalyo iyo bogaadin ugu diro ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo dagaal xaq ah kula jiro khawaarijta doonaya inay ummadda Soomaaliyeed u diidaan nolol dhiigooda baneysteen xurmadooda baneysteen maalkooda baneysteen naftooda baneysteen ragaas u istaagay waxaan u hambaleynayaa sidoo kale waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ka dhigay ajenda qaran ajendadiisa koobaad in dalka laga sifeeyo argagixisada runtii markaan dagaalkaas waxaan u arkaa dagaal xaq ah waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliyeed muddadii yani 15 bilood ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska fadhiyay muddadaas kooban in guulo waaweyn oo la taaban karo laga gaaray arrinta la dagaalanka argagixisada waxaad ogsoon tahay waxa lagu xuriyay muddadaas kooban degmooyin waaweyn oo istiraatiiji ah kasoo bilaab xaraf dheer ceelbuur ceel dheer Moqokori aadan yabaal iyo waxaan ku dhiilay deegaano kale oo iyagana aad muhiim u ah oo deegaanadaas hoostaga sida waxaan ku dhiilay wabxa Allahu musta'an yani Misaad Cali Gaduud Masagawa Galcad yani ma la soo koobi karo intaas oo maxaan ku dhiilay deegaanka Rumbugood oo degmo ah intaas oo dhan waxa lagu xuriyay muddo 15 bilood marka arrintaas waxay ku tusaysaa guul weyn oo runtii la taaban karo in laga gaaray la dagaalanka argagixisada waana waliba record ay jibisay yani maxaan ku dheelaa dawladda Soomaaliyeed in muddo kooban oo intaas la eg intaas lagu xureeyo marka waan hambaleynayaa ciidamada qalabka sida guushaas taariikhiga ah Ilaahay oo sabab ka dhigay inay gacantooda maxaan ku soo hoyato markaan dagaalkuna waa dagaal xaq ah kan saas leena anigu iska dhahay ilaahay quraanku wuxuu ku dhahay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun culimada diinka Soomaaliyeed shirweyne ay qabteen shirweynihii ugu dambeeyay culimada diinka Soomaaliyeed waxayna ka soo saareen ifto ah in nimankan shabaab la baxay inay yihiin khawaarij isla markaana ay banaan tahay bal ay waajib tahay in la dagaalamo markaan cidii ku dhimantana in ay tahay shahiid fi sabiilillah markaan halkaas marka waxaan rabaa bogaadin kadib inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii ku shahiidana aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu barayaa in uu shahaadadooda ka aqbalo intii ku dhaawacantana in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhaawacooda bogsiyo mar haddii dagaal ugu jiro waxa waaye guulahaas inta la gaarayo waa dagaal marka qaarkood waxa imaan karo culeysyo waxa imaan kara cadawgu inuu maalaha qaar oo maxaan ku dhihi lahay dib ka geysto oo ciidanka wax soo gaaraan waxa haday ciidanka soo gaaraan mar hadaad xaq ku taagan tahay adiga oo xaq ku dagaalamaysid waxa waaye waxaad ka sii helaysaa geesanimo ilaahay quraanka wato ku dhahayo fama wahanu lima asaabu fi sabiilillah wama da'ufu wama istakanu yani waxaan leeyahay ciidamadana qalabka sida fala tahinu wala tahzunu wa antum la'alun guulaad gaarteen argagixisaduna marka waanta waxay maraysaa ramiqa ugu dambeeyay ruuxda yar ee ugu dambeeyay ku jirto marka waa gebagebo waa nafl caari waa naf ganangeeda kama leexdo marka inta yartaana Ilaahay idinkiis waa dhameystiri doontaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa qaybihiisa kala duwan ee bulshada haday ahaleed ganacsato siyaasiyiin culamaa u diin haween dhaqan inay ciidamadaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo xukuumadda dan qaran ay la garab istaagaan heel iyo hoob cid walbana yani wixii kaalintii kaga aadan fataqula ma sadactum inay kaalintii qaadato cidii afku garab istaagi karto cidii adinku garab istaagi karto cidii maalku garab istaagi karto waxaan aaminsanahay inay waajib ku tahay in la garab istaago ciidamada qalabka sida Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah argagixisada waana national issue waaye waa arrin yani maslaxa lil jamiic ma garanaysaa marka dawladeena muddadaas kooban inay guushaas ku gaartay waxay daliil kugu tahay in feeska koobaadna oo insha Allah ta'ala gabagaba marayo
فيستو فيسترين إلى إذا كيسو موسو جب دون إلى البارد والله وان حن إسليها طبعا دجال كأرجح الصدر وقول جرو دوا رنتي وان كالغاضي نادي إن الله فشل يواو في الدنبيت كان عد كستو أما سياسي هاتو أما قف عادي هاته قادة طلاب يعني كدن إذا ماذا قلب كسيدي إياه دجال كل وقول جر أرجح الصدر أما طلاب لو أركي إني يرجع ناس أرجع الصدر أما أرجع الصدر وتريس أما يعني دعايات كاذبة إبان إيه كتركتين كفا فينا يسوع حولها الدجال تاس طبعا وافل دنبيت وهذا مركل اللي هذا فشلين والدين بتصحيحه على هذا أمنية هي كرسور كدرجة أيوة طالع إني شغال ضد كقبصدان أنا ما أمسن السياسة أو بنانته هي إنه يعني فرق اللي حولها إذا ما قلب كسيدة لكن دانك كله waxaan ugu baaqayaa guud ahaan siyaasiyiinta ama kuwa xilka hayo ama kuwa aan xilka haynin kuwa hor u soo qabto kuwa hadda damaca ku jiro kulligeenba inaan horta garab istaagno ciidamada qalabka sida labo inaanan siyaasadaynin howlaha la dagaalanka argagixisada oo maaragtay aanan marna yani hadii la ku rooyahay in loo midooba la rabaa la dagaalanka argagixisada in aan siyaasad ka dhex raadino arrin wanaagsan maahan marka aniga arintaas waan ka digayaa waxaan leeyahay de qofkii halkaas wax ka raadiisana horna waan u cadeeyay haddana waan leeyahay iimaankeeda Allah geliyo carabtu waxay tiraahdaa wama hakada tusaqu al-ibil marka sidaas geela looma kaxeeyo dalka dagaal oo ku jira xaalad dagaal ayaa lagu jira argagixisad cid ay u turaysa ma jirto waa kuba dadkeen hooyooyinkeen iyo maxaan ku caruurteen iyo يعني علماء يا شعب جود أهان يا أقوياهن كدرقيات درس نقول لين هاي مركوان من يعني هر أو وح أي دافعيان اليابس والأخضر أنا فين مركن من كاس أرجع حصة أو خواريج أو علماء الدين كصومالية أنتي كفريستين أي سارين محان كله لا يفتدل سارين إن يهين خواريج أي واجب إلا الدجالمه أنا وحنا من سنة سياسي مجال هو بنان أن أحين إنه عيدا ماذا قلب كسيدي دولة الصوماليات إيه مدحونها جمهورية وقرب استاجو أرند الله تقال لك حسدا مجال أن أحين وكبرنا مجال أنا مثلا عد مجال أن أحين هالكاس غادة أرجع حسوا وحوه اللي هايو إلهو يعني وح أنت دونا لا يرى ذا كل غضنا كانوا إحنا من سنة ونقول دقيقة وحنو أركان إنه أرن وناقصن إنن أحين markaan cid kasto arintaas talaabtaas ku dhaaqaysan waan ugu digayaa siyaasiyiin hadaan nahay ama xil hay ama ha haynin arintan waa national issue waa dagaal xaq ah ciidamada qalabka sidina dawladda Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed ee iska leh difaaca dalka iyo dawladnimada iyo diinta ay u taagan yihiin garab istaagay naga mudan yihiin marka waxaan leeyahay yaanan siyaasadaynin sidaas aan leeyahay aragtida wata طبعا horna waan u cadeeyay shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa طب شعب الصومال وحلو ذوق سوي هاي دجال كان هذا من حناج جمهورية الصومال محمود أنا حسن محمود وهو جامينه شعب الصومال دوات قرب استاجوين بموجيان واتي إذا ماضي شعب حتى هو وقاتي إذا ماضي كبر برتقال لمن وانكسي بوجاد وانا بوجادين يا وانكسي بيرجلين يا إلى ذلك أردن لقى عرب ترايو أرجع حسده وما أنت يعني رمقي قدام بمروح ويرى قدام بيأكل شعبكم حنقول باقيا إني قرب استاجان عندما تغلب كسلكم إني وح معامل أهبيراته إني نسال الله سمين أرجع حسده ودك وأقول ماتي إلى إني كيس واجبين ولا أركي هنتوضا تبرتوضا ولا أركي مركان إني شعبك الصومال حنقول باقيا إني دولة يعيد ما تغلب كسده أي قرب استاجان waxaan hadda wada ogsoonaa magaalada Muqdisho isbedel weyn xagga nabadgelyada inuu ka dhacay markii hadii la ku rooyahay arintaas laftirkeeda waa arin bogaadin mudan shacabka Soomaaliyeed nabadgelyadooda ha ilaashadaano natiijooyinka wanaagsan ee la dagaalanka argagixisada feeska koobaad laga gaaray oo manaadiqda iyo gobolada degmooyinka ugu muhiimsan ee farahooda laga baxshana aan ilaashano kuwa dicaayadaha raqiista ah يعني meelaha la taagan ee Facebook ku soo qorayana waxaan leeyahay ku kodsoominaa malafaadka iskaaga qasan malafaadku waa inay noo kala duwan yihiin danta caamka ah oo maslaxa lil jamiicana
وإن كمدة سنة هاي دنت خاص كأنا إن دنع أسكدنا وهي مركي حالة دانو كلا أي تاجن تهاي وإن المذوبة شعبكم مذوبة إذا مدينة نقرب استاجة إذا ما نوحليها واد قولي ستين وحيرا إذا دمن قرب كنا تاجنا هاي إلا بالله بعث فلوس شباب يارك حسد إلى يدكس أنت سان شعبكم باغيا